Tina na Nemo walienda mjini kutembelea baba yao. Walisafiri siku ya Jumatatu. Baba yao alifurahi kuwaona. Tina iyo Nimco walienda waxay aadeen mjini magaalada kumtembelea baba yao si ay u soo booqdaan aabahood. Walisafiri siku ya Jumatatu. Waxay safreen maalinta Isniinta. Baba yao alifurahi kuwaona. Aabahood wuxuu ku farxay inuu arka ama la kulma Tina iyo Nina. Tina iyo Nina walienda mjini waxay aadeen magaalada kumtembelea baba yao si ay aabahood u soo booqdaan. Walisafiri siku ya Jumatatu. Waxayna safreen maalinta Isniinta aha. Jumanne maalinta Khamiista baba yao aliwapeleka kuona wanyama porini. Maalinta Khamiista baba yao aliwapeleka aabahood wuxuu geeyay kuona si ay u soo arkaan wanyama porini, xarunta laga daawada loo daawataga xayawaanada duurjoogta. Jumatano maalinta Arbacada ahna walienda waxay aadeen katika uwanja wa ndege. Waxay aadeen garoonka diyaaradaha. Jumatano maalinta Arbacada walienda katika uwanja wa ndege. Waxay aadeen garoonka diyaaradaha. Alhamisi maalinta Khamiista walienda kuogelea. Maalinta Khamiista Alhamisi walienda waxay aadeen kuogelea si ay u soo dabaashaan. Ijumaa maalinta Jimcahana walienda katika kituo cha telefisheni. Maalinta Jimcahana waxay aadeen walienda katika kituo cha telefisheni. Waxay aadeen xarunta telefishinka ama meelaha xarunta telefishinka ee meelaha warbaahinta waaye. Alhamisi walienda kuogelea. Maalinta Khamiista waxay aadeen si ay u soo dabaashaan. Ijumaa walienda katika kituo cha telefisheni. Maalinta Jimcaha ahna waxay aadeen xarunta telefishinka ama warbaahinta. Jumamosi walifua nguo yao. Jumamosi walifua nguo zao. Jumamosi walifua nguo zao. Maalinta Sabtida ahna waxay dhaqdeen dharkooda. Jumapili walienda kanisani. Maalinta Axadana waxay aadeen walienda kanisani. Waxay aadeen kaniisada. Baadaye kadibna walirudi kwao nyumbani. Waxay u soo laabteen gurigoodii. Baadaye kadibna walirudi kwao nyumbani. Waxay u soo laabteen guryahoodii. Walifurahi kuwa mjini kwa siku hizo zote. Waxay aad ugu farxeen in ay joogaan magaalada maalmahaas oo dhan. Sheekadii oo dhan waatan ee hadda aan qayb u soo qaadnay. Tina na Nemo walienda mjini kumtembelea baba yao. Tina iyo Nimco waxay aadeen magaalada si ay u soo booqdaan aabahood. Walisafiri siku ya Jumatatu. Waxay safreen maalinta Isniinta baba yao alifurahi kuwaona. Aabahood aad ayuu u farxay inuu la kulmo. Jumanne maalinta Khamiista baba yao aliwapeleka kuona wanyama porini. Maalinta Khamiista aabahood wuxuu u qaaday xarunta xayawaanada duurjoogta loo daawasho taga. Jumatano walienda katika uwanja wa ndege. Maalinta Arbacada Jumatano waxay aadeen garoonka diyaaradaha. Alhamisi walienda kuogelea. Maalinta Khamiistana waxay aadeen si ay u soo dabaashaan. Ijumaa walienda katika kituo cha telefisheni. Maalinta Jimcahana waxay tageen xarunta warbaahinta ama telefishinka. Tina na Nemo walifurahi kujiona kwenye television. Waxayna aad ugu farxeen inay telefishinka iska arkaan. Jumamosi nao walifua nguo yao. Ereyadii aan ka faa'iidnay sheekada hadda aan soo marnay waxaa ka mid waxaa ku jiray ereyada aan ka faa'iidayna waa ayaamaha sida Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista, Jimcaha, Sabtida iyo Axadda. oo Isniinta Jumatatu waa Isniin, Jumanne, Talaado, Jumatano, Arbaca, Alhamisi oo Khamiis Ijumaa oo Jimca iyo Jumamosi, Sabti iyo Jumapili oo
axad ah maalmahaas ayaan ka faa'iideynay fadlan muuqaalka jooji oo haddii aad fahantay su'aalooyinka soo socda ka jawaab. Su'aasha u horeysa waxay leedahay kuna watoto wangapi katika hadithi, imisa caruur ayaan sheekada ku marnay ama ku jirtay, imisa caruur ayaa sheekada ku jirtay ama aan kusoo marnay sheekadii haddii aan soo marnay. Tina na Nimco, Tina iyo Nimco walienda wapi siku ya Ijumaa, Tina iyo Nimco walienda wapi xagay aadeen maalinta siku ya Ijumaa, maalinta Jimcaha xagay aadeen. Baba yao alifurahi kwa nini? Tina iyo Nimco aabahood muxuu ku farxay, waxa farxad geliyay maxaa waay? Su'aashaasna waad ka jawaabaysaa. Tina na Nimco walifanya nini siku ya Jumamosi, maalinta sabtida ah Jumamosi, Tina iyo Nimco